waan idin salaama dhammaan saaxiibada ku xiran janaalkeena aad ayaan idinkaga mahadcelinaa sida wanaagsan aad ula socotaan muuqaaladan bartaan soo dhigo soo dhawaada saaxiibayaal maanta waxaan rabaa idinla wadaago qaybtii saddexaad xogtii aan kaga hadlaynay qaar ka mid ah jilayaashii Bollywoodka sagaashameeyadii caanka ahaa jir laakiin waqtigan la joogo la isku iloobay maanta waxaan idinla wadaagi doonaa 5 ka mid ah jilayaashaasi balse intaan u guda galin muuqaalkayga waxaan ka codsanaynaa janaalku soo biirto subscribe saarto haddii muuqaalku cajab geliyo laakiin oo saar wixii ay aad qabto commentigaas inoogu reeb sii share garay oo la wadaag asxaabtaada soo dhawaada saaxiibayaal intii la socotay sheekooyinkii aan kaga hadlaynay ama labadii qayb hore aan kaga hadalnay qaar ka mid ah jilayaashii Bollywoodka caanka ahaa jir sagaashameeyadii laakiin waqtigan la joogo in la iska iloobay waxay inuu mareysay qaybtii labaad balse maanta waxaan dil wadaagi doonaa qaybtii saddexaad qaybtan saddexaad waxaan ku soo qaadan doonaa 5 ka mid ah jilayaal sagaashameeyadii caan ahaa jiray laakiin waqtigan la joogo la iska iloobay jilaaga ugu horeeya sheekadeena ku bilaawi doono waa jilaaga lagu magacaabo Jugal Hansraj ama Jugal ayuu ku magac dheeray aktarkani waa mid ka mid ah aktaradii soo caan baxay horaantii sagaashameeyadii aktarkan asigoo yar ayuu fanka Hindi soo galay ama uu ku soo biiray jilaagan ana ka soo muuqday aflaam dhowr ah oo laga xusi karo filimkii caanka ahaa ee Mohabbateen waliba asigoo aad u daayar oo 12 jir ah ama 10 jir meelahaas ka agdhow ayuu ka soo muuqday filim lagu magacaabo Masoom sanadii 1983 jilaagan lagu magacaabo Jugal waxa uu ka mid yahay aktaradii soo caan baxay horaantii sagaashameeyadii laakiin waqtigan la joogo la iska iloobay jilaagan aflaamta ama filimkiisii ugu horeeyay hogaamiye uu ka noqdo waa filim lagu magacaabo Baba Kehta Hai ka oo uu la wada jilaagii caanka ahaa ee Anupam Kher ma abaska waxaad u taqaanaba jilaagan laakiin Soomaalidii aflaamta sagaashameeyadii daawan jireen ama xilligii shileemooyinka waxay ku yaqaanaan ama ay ku barteen filimkii caanka ahaa ee Mohabbateen ka uu hogaamiyaha ka ahaa Shah Rukh Khan sidoo kale Amitabh Bachchan haddaba jilaagan lagu magacaabo Jugal Hansraj waxa uu ka mid yahay aktaradii sagaashameeyadii caanka ahaa jir laakiin waqtigan la joogo la iska iloobay sheekadan qofka labaad ee taabanayso waa jilaaga lagu magacaabo Rahul Khanna waxa uu la dhashay jilaagii caanka ahaa ama jilaaga caanka ahaa ee Akshay Khanna ama wiilka Mastaan waxa uu taqaano jilaaga Rahul Khanna waa curudka Vinod Khanna ama Mastaankii geeriyooday aktarkan ayaana ka mid ah asigana aktaradii caanka ahaa jir sagaashameeyadii laakiin waqtigan la joogo la iska iloobay markaan eegno jilaaga Rahul Khanna waxa uu ka soo muuqday aflaam dhowr ah oo laga xusi karo filimkii caanka ahaa ee Elan iyo sidoo kale filim lagu magacaabo Eid kaas oo uu la waday jilaagii caanka ahaa ee Aamir Khan haddaba Rahul Khanna asigana waxa uu ka mid yahay aktaradii sagaashameeyadii caanka ahaa jir laakiin waqtigan la joogo la iska iloobay jilaaga sheekadani ama jilaaga saddexaad ee sheekadan taabanayso waa jilaaga lagu magacaabo Samrat Mukherjee jilaagan lagu magacaabo Samrat Mukherjee waxa ay Soomaalidu qaar u yaqaanaan Ram jilaagan ayaana ka soo muuqda aflaam waaweyn oo sagaashameeyadii caanka ahaa marka la eego aflaamta xilligaas tiyaatarada laga daawan jiray sidoo kale aflaamta Soomaalidu shileemooyinka daawan jireen waxa jireen aflaam badan oo jilaagan uu sameeyo caan ah ay aad u garanayaan ama ay aad u xiiseyn jireen jilaagan lagu magacaabo Samrat Mukherjee ama Ram waxaad u taqaanaba wuxuu ka soo muuqda aflaam dhowr inta badan laakiin waxa uu la soo shaqeeyay jilaagii caanka ahaa Manik Bedi ama Sham waxaad u taqaanaba labadaas jilaa ama labadan jilaa oo kala ah Manik Bedi iyo sidoo kale Samrat Mukherjee waxay iskala shaqeeyeen ama iskala soo muuqdeen in ka badan 5 filim haddaba jilaagan lagu magacaabo Samrat Mukherjee waxa ka soo muuqday ama aflaamta ugu waaweyn oo caanka ku yahay Soomaaliduna ay garanayso waxa kamid ah filimkii caanka ahaa ee Ram Aur Sham iyo sidoo kale aflaam uu ka mid yahay Sanjeer oo isla wadeen jilaaga caanka ah Manik Bedi iyo ninkii caanka ahaa ee Soomaalidu dhahan Indha Baliil ama Aditya Benjel waxaad u taqaanaba sidoo kale aflaamta kale uu ka soo muuqdo waxa kamid ah filim lagu magacaabo Bye Bye ama Bye Bye waxay noqotaa walaal weeyaan laakiin Soomaalidu qaar waxay u maleeyaan Bye Bye yani tii Bye Bye ahayd maaha laakiin Bye Bye filim lagu magacaabo asiga iyo Manik Bedi ay hogaamiyaal ka wada yihiin ayuu ka soo muuqday haddaba jilaagan lagu magacaabo Samrat Mukherjee asigana waxa ka mid yahay aktaradii sagaashameeyadii caanka ahaa jiray laakiin waqtigan la joogo saaxiibayaal la iska iloobay sheekadan qofka afraad ee taabanayso waa jilaaga lagu magacaabo Kamaal ama jilaa yani sagaashameeyadii caan ahaa jiray ka oo lagu magacaabo Kamaal Sadanaad inkastoo Soomaalidu aad aysan u wada garanaynin haddana jilaagan waa jilaagii filimkii gabadha lagu magacaabo Andhe Kajal filimkeedii ugu horeeyay ee la sameeyay waana filimka caanka ah Beekhudi aktarkan ayaana ka mid ah aktaradii sagaashameeyadii aadka ama horaantii sagaashameeyadii aadka loo jeclaa jiray aflaamtiisa inta ugu badan aflaamta jacaylka ayuu jilaagani ka soo muuqan jiray jilaagan lagu magacaabo Kamaal Sadanaad asigana waxa weeyaan wuxuu ka mid yahay aktaradii sagaashameeyadii caanka ahaa jiray
laakiin waqtigan la joogo la iska iloobay. Jilaagan markaan eegno aflaamta uu ka soo muuqdo waxaa ka mid ah filimka caanka ah ee Rangi oo la daawaday sanadii 1993. waxaa la waday gabadhii geeriyootay Devia Bharti, asiga ayaa hogaamiyaal ka wada hayeen. Sidoo kale aflaamta kale ee lagu xasuusan doono jilaagan lagu magacaabo Kamal Sadanath waxaa ka mid ah filimkii Kajal ee ku soo caanbaxay ama filimkii ugu horeeyay Kajal ee sameysay lagu magacaabo Bekhudi. filimkaas ayay Kajal iyadoo 16 jir ah kaga naqatay atishad buuxda saaxiibayaal. haddaba jilaagan asigana ninkan lagu magacaabo Kamal Sadanath wuxuu ka mid yahay aktaradii sagaashameedii caanka ahaa jiray, laakiin waqtigan la joogo la iska iloobay. sheekadan qofka ugu dambeeyay ee taabanayso waa jilaaga caanka ah ee Rohit Kumar. jilaagani Rohit Kumar asigana wuxuu ka mid ahaa aktaradii sagaashameedii caanka ahaa jiray, laakiin doorka caawinaadda aflaamta kaga soo muuqan jiray. markaan eegno jilaagan Rohit Kumar, Soomaalidu waxay aad ugu garan ogyihiin filimkii caanka ahaa Muqaddar ama Shiba waxaad u taqaanaba. filimka Shiba ama Muqaddar waxaa la daawaday sanadii 1996 waana mid ka mid ah aflaamta markay timaado dhanka tarjumada xataa Soomaalidu ay aad ugu xarakeeyeen. markii la eego studio Alfagi ayaa filimkaasi Muqaddar lagu tarjumay. sidoo kale jilaagani wuxuu ka soo muuqday aflaam uu ka mid yahay filim lagu magacaabo Azimiyaash, kaas uu hogaamiye u ka yahay jilaaga caanka ah ee Dalmandar iyo sidoo kale ninka lagu magacaabo Rohit Kumar. jilaagani waqtigaas waxa uu ahaa actor doorka dhanka caawinaadda ama supporting actor aflaamta inta ugu badan kaga soo muuqan jiray. laakiin waxay Soomaalidu markii arkaan jilaagan muuqiisaba u soo dhaca ama ay xasuustaan filimka caanka ah ee Muqaddar ama Shiba waxaad u taqaanaba. haddaba Rohit Kumar asigana wuxuu ka mid yahay aktaradii caanka ahaa jiray sagaashameeyadii, laakiin waqtigan la joogo la iska iloobay saaxiibayaal. shantan jilaa ee kala ah Jugul, Kamal Sadanath, ninka lagu magacaabo Samrat Mukherjee, Rahul Khanna iyo sidoo kale jilaagii hadda ugu dambeeyay aan ka hadlaynay ee Rohit Kumar, dhammaan iyaga 3 ama 5tooda jilaa waxay ka mid ahaayeen aktaro sagaashameeyadii caan ahaa jiray, laakiin waqtigan la joogo la iska iloobay. jilaayaashan ayaana ka soo muuqda aflaam aad u caan u ahaan jiray oo shaleemooyinka markay timaado Soomaalidu sagaashameeyadii wixii ka dambeeyay aan dhahay ama 2000kii ama 2000 waqtiga shaleemooyinka la daawan jiray aad u xiiseyn jireen aflaamta ay ka soo muuqdaan jilaayaashan hadda aan kor ku soo xusno saaxiibayaal. haddii aan muuqaalada ka horeeyay aan soo fiirsan, waxaa jira 2 muuqaal aan kaga hadlalnay qaar ka mid ah jilaayaal Bollywoodka caan ahaa jireen sagaashameedii, laakiin waqtigan la joogo la iska iloobay saaxiibayaal. haddaba saaxiibayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa xogtii aan kaga hadlaynay qaar ka mid ah jilaayaashii Bollywoodka caan ka ahaa jiray sagaashameeyadii, laakiin waqtigan la joogo la iska iloobay. fadlan haddii aad ka heshay muuqaalkeena like inoo saar, janaalka dadka cusubta subscribe inoo saar, sii share gareeyo la wadaag asxaabtaada. waan ku mahadsantahay daawashada muuqaalkeena.